السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر رياضة Somali Networking Academy. مقعي واشرف أحمد ترابلة. أدبا وفرح سنة أنا كمدنا خطة دعوة Somali Networking Academy. هذا باللحظة دقيقة خصوص عط مقال كان وحكوا شيء دونا وحويها نتورك سيدو أقرب شما النتورك فأيد وليها النتورك إيه هدي عطها قف كوريرسان برشاد علمي النتورك قضب وجودن بيوا قضب عاد مهم وحكوا شيء دونا حبك عضو برا اللي هتعملين النتوركينك. هدي أكفى إيد مقال كان لو ذاك ولا لها سعيكن أكفى إيدان عم بلاون مقال كنا. waa maxay computer networking? Computer networking waa kooxo kombiyuutar ah kuwaasoo adeegsada nidaamyo isgaarsiineed oo ku saabsan isku xirnaanta digital systemska. Ujeedaduna tahay wadaagista ilxogeedyo. Tusaale, ilxogeedyada ay computer networking ka wadaagi karaan waxaa ka mid ah printers, faylal, maqal iyo muuqaalo iyo wixii la midka ah. Allah ayaa mahad iska leh haddii maanta la alif lahayn computer networking awood maadan u yeelan lahayn inaad daawato muuqaalkayga adigoo isticmaalayo internet ama network. haddaba networku siduu u qaybsamaa? network wuxuu u qaybsamaa qaybo badan balse muuqaalka waxaa kugu sheegi doonaa labada qaybo ugu waaweyn. waxay kala yihiin WAN iyo LAN. waa maxay LAN? ugu horreyn LAN waxaa laga soo gaabshay local area network. LANku waa kooxo aalado hal meel isku wada xiran ah taa u suuragelinayso wadaagista ilxogeedyo. Tusaale, LAN waxaan ku tilmaami karnaa ama aad ka heli kartaa dhismooyinka, xafiisyada, gurigaada. haddaba LANku wuxuu noqon karaa mid yar ama mid aad u weyn ka oo ka bilowda hal isticmaale ilaa ay shabakad aad u weyn. sidaas darteed LANku wuxuu noqon karaa laba midkood, wired ama wireless. haddii LANkaada uu noqdo wired waxaa la isticmaali doonaa fiilooyin, copper cable ama fiber optic si la iskugu xiro computerska. halka wirelesska la isticmaali doono aalado kale kuwaasoo u suurtagelinayo computerskaada inay ku xirmaan networka ayagoo aanan isticmaalaynin wax fiilo ah. aaladaas waxaa ku tilmaami doonaa routers ama home routers ama access points iyo wixii la midka ah. waa maxay WAN? WAN waxaa laga soo gaabshay Wide Area Network. WAN waxaa loo isticmaalaa isku xirka aalado aan meel wada yaalin. Tusaale, WAN wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad isku xirto degmooyin, magaalo ama xitaa dal ka baxsan xuduudda dalkaada. haddaba WAN waxaa u kala qaadi doonaa laba qaybood, wired ama wireless, si kale fiilo ama fiilo la'aan. balse moogtaa dunidaanu idil inay iskugu xiran tahay WAN, khaasatan annagoo isticmaalayno fiilo. fiilada la isticmaali doono magaceedu waxaa la yidhaahdaa fiber optic ama optical fiber. fiiladan waxaa si qaasa loogu design gareeyay in la iskugu xiro adduunko idil ayadoo la soo marsiinayo badda. fiberku waxaa u kala qaadi doonaa laba qaybood oo waaweyn. waxay kala yihiin single mode ama multi mode. fiilada fiberku markay noqoto single mode waxay awood u leedahay inay fogaan dheer xogtaada gaarsiin karto ayadoo isticmaalayso light, khaasatan laser light. halka multi mode-ka fogaan yar ee wax ku gudbi karto ayadoo isticmaalayso laser iyo LED light. wirelesska waxaa la isticmaali doonaa aalado qaas ah, tusaale naanooyinka iyo wixii la midka ah. sidee u shaqeeyaa networka? si network uu shaqeeyo wuxuu u baahan yahay inuu helo saddex shay oo muhiim ah. waxay kala yihiin end device, media, intermediary. haddaba muxuu yahay end device? end device waa aalado kuu suuragelinayo in xog lagu soo marsiiyo adna aa marsiiso adigoo isticmaalaya network. tusaale, end device wuxuu noqon karaa mobilkaada, computerkaada, TV-gaada iyo wixii la midka ah. media waa marin isgaarsiineed taa oo kuu suuragelinaydo inaad isku xirto kombiyuutaradaada. halka intermediary ay tahay isku xirka aalado aanan meel wada yaalin. tusaale waxaa ka mid ah switchka, routerska iyo wixii la midka ah. maxay tahay muhiimadda uu leeyahay network? network wuxuu muhiimad u leeyahay nolosheena oo dhan, balse waxaa idinkaaga sheegi doonaa 3 qodob oo muhiim ah. saddexda qodobka koowaad wuxuu yahay in
xilli alaalo xilligaad u baahato aad heli karto qofkaad u baahan tahay adigu ku wacaayo maqal ama muuqaal. qodobka labaad oo ugu muhiimsan waxay tahay in xogtaada amnigeeda ay sugan tahay gacantaadana aad ku haysatid. qodobka saddexaad, network muhiimadda ugu weyn oo noo dhaliyay nolol maalmeedkeena oo kusoo kordhiyay waxay tahay in qarash oo naga yaraado. haddii aan qof u baahano asal waxaa dhici jirta inaan lug ku raadin ama baawur u raacno, balse maanta qarash la'aan waxaad jeebkaada ku wadataa taleefankaada si yaroo sahlan oo waxaa la xiriiri kartaa qof alaala qofkii aad u baahan tahay. maxaa laga rabaa shakhsiga rabo inuu barto cilmiga networking-ka? inaad barato networking kaagama xirno in shuruud aad la imaato, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa 5 qodob oo muhiim u ah inaad barato cilmigan iyo cilmiyada la halmaala. qodobka koowaad waxa uu yahay inaad la imaato rabitaan, inaad tahay qof raba inuu barto cilmigan. qodobka labaad waa inaad la imaataa waqti 24 saac 12 saac inaad ka siido saacada cayiman si aad u barto cilmigan. qodobka saddexaad waa inaad la imaataa degenaan, yacni markii aad akhrinaydo buwaagta networking-ka quseeya inaadan u akhrinin si degdeg ah oo aad u akhriso si yar oo jilicsan. qodobka afraad inaad la timaado dulqaad, yacni waxa ula jeedaa inaad la timaado dulqaad waxa ka hor imaan karo problemo scenarios adag inaadan noqonin mid ku adkaado oo dhaho waa iga bis. qodobka ugu dambeeya uguna muhiimsan wuxuu yahay ku celcelis, inaad la timaado inaad ku celcelido barnaamijkan si uu kugu noqdo wax ku xiran noloshaada. hagaag haddaba waxaa soo gaartay dhammaadka muuqaalka. fadlan haddii muuqaalkan uu ku caawiyey la wadaag walaalaha kale uu ka qarsoon yahay kuna wareersan network waxa uu yahay si ay kaga faa'iidaan. sidoo kale ku soo biir Somali Networking Academy dhammaan social mediaheeda Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, meel kastoo leh. waa kaa soo dhaweynaynaa. aad baa ugu faraxsanahay inaad ku soo raaxaysato muuqaalkan. markale ha iloobin inaad la wadaagto walaalaha si ayakana ay kaga faa'iidaan. mahadsanidin.